محمد كاهين أو موسى بيحي كور عليي إسلام كان كويري موسى دول البهانت كسمير أم قري عاردي سلام الله إيد الكيمبا ملك استاد الدنيا دافع إذا كتوكتان ولكن الله صال أو إيد الله سيدي هره هي هالو العديد وحنو ذي الناور بحنو حيصله وحكم إذا وربحنا ذا نو ذي هينو محمد كاهين يجودي كتشيجا قبل الله SSC صدق كها محاق لقب صدي كدي مركي وضل لجاي لعجو آد وفرابضان وربحين حيصله أيانو ذي كهينا وحن كرو وربحين ذي كهينا بلويت جامع سياد وما تقلي كجودوكتي مني ماذا خاتم ستيت أوف صوماليا إسلام مركان يري وحن كجورا عنها قرآن كي وقاتي قرات جامع قرات إسماعيل ينور بحين أيانو ذي كهينا وحن كرو وربحين ذي كهينا جبكي كودعي odayaashii musabixii uu kula kulmay madaxtooyada SNM isla markaana uu doonayay isla maanta inuu soo diro magaalada Laascaanood si ay ula kulmaan ismada dhulbahante mid iyadana warbixin xiiso leh ayaanu idinkaga haynaa warbixin xiiso leh xaaladda madaxtooyada SNM warbixintii maxamed kaahin uu keenay jaawareerka haysta musabixii barnaamijka ayaan ku iftiimin doonaa mid insha Allah aan ku horeeyo beelweynta jaamac siyaad oo maanta si rasmi ah qalinka ugu duugtay midnimada khaatumo isla markaana yiri waxaanu ku gowracanahay go'aanka dhulbahanta ka mideysan yahay garaadkaygana uu qaatay garaad jaamac garaad Ismaaciil go'aankaas oo ah dhulbahanto mid ah iyo jabhadda argagixisada inaan dhulkayga ka saarno haddaad maqli jirteen beelweynta jaamac siyaad ayaa garab siinaysa Somaliland maanta waa ay uga dhamaatay dhulbahanto dhan go'aankaasi waa wada qaatay shirka isimada dhulbahante ee ka furay magaalada Laascaanoodna warbixintiisa waan idin soo gudbin doonaa fiidiyoogan ku xiga insha Allah waxaan kaloo rabaa inaan idin soo gudbiyo jabkii ku dhacay odayaashii musabixi uu kula shiray madaxtooyada SNM odayaashaas uu rabay isla maanta inuu soo diro magaalada Laascaanood si ay ula kulmaan isimada mid balse maxaa ku dhacay intay sariimanba telefoonada cid ka qabata ayay waayeen oday walba ay soo wacaan wuxuu yiraahdaa warmakii hebel ba ahaa xaguu jooga Hargeysa makii muqaylka ahaa ku dami siyaasadda odayaashaasi wataan waxa weeye in ay isimada ama odayaasha dhulbaanta ka dhaadhiciyaan arin beer la xawsi ah arinkaasi muxuu yahay aan kala saarno dhulbahantow maamulka Somaliland iyo musabixi kala saar musabixi hadduu khalad idinka galay waa shakhsi gooriya maanta wixii laga dambeeyo cududda iyo awoodda Somaliland idinka haysanaya gobolka Soolna waxaan dhulbahanta ahayn ka talin maayo yaanu baabiin gooni isku taagi gobolada waqooyi ee aanu wada qaadanay inaan baabiin arrimo noocaas oo beer la xawsiya ayuu Muuse ku soo shubay arrinkaas ay rabeen dadkooda inay kula soo noqdaan balse maxaa ku dhacay intaysan magaalada imanba telefoonadii ay soo wacayeen ayaa laga qaban waayay odayaashaas jabkaas ku dhacay dhulbahantana maanta waa mid aan ku soo noqonna xaaladda magaalada Laascaanood dhulbahanta maanta waa uu israacay xaqiiq weeye midaas waa uu israacay dhulbahanta maanta waa jiraa dhowr qof oo fara ku tiris ah oo horgalaa way jiraan laakiin iyaguna fursad bay haystaan wali fursadda ay jabhadda SNM haysata mid la mid ah ayay haystaan kuwa cad quursiga qaata ee nacab kalkaalka ah ee difaacaya kuwii dadkooda iyo ubadkooda iyo maatadooda leynayay fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay war dhulbahanta waa midoobay waad aragtaan sawirada gadaasheeda ka muuqda waa beelweynta jaamac siyaad oo u istaagtay aayaha iyo danaha dhulbahante midna ka noqday maxaa idinka idiin dambayn doona wali waa inoo soo socdaa jabkii ka raacay maxamed kaahin guddigii aaya ka talinta gobolada SSC ee soddonka ahaa balse aan ku horeeyo warbixin yar oo dhab ah oo xaqiiq ah oo ay abaabulayaan
federaalka iyo jabhadda SNM ee maamulka ah aan idin yara tuso in yar halkan maxaad ku aragtaan waxaad ku aragtaan calankii Khaatumo State of Somalia siyaasad ah waxaa la dejiyay in calanka intan yar ee cad ee farasku ku sawiran yahay in la daayo intan buluuga ahna lagu bedelo calanka Somaliland waa arin federaalka uu soo abaabulay iyadoo kacdoonka dhulbaahanta laga faa'iideysanayo dhulbaahantana lagu qancinayo Somaliland waxbaad ku leedihiin kadib marka la baabi'iyo intan aad aragtaan calanka marka la baabi'iyo waxa lagu waxaynayaa intan buluuga iyo xidigta la baabi'inaya kadib saddexdii liid googoradaha Somaliland ahaa ee rinjiyada marsanaayeen ayaa la rabaa in lagu dhajiyo qaybta cad ee faras ku sawiran yahayna la daayo waa arin siyaasi ah oo federaalka ka yimi arinkaana waxa lagu dhaqaaqi doonaa waad arki doontaan wax sax ah waxaan ahayn haba yaraatay idin soo gudbin maayo marka xal kale la waayo waxa loo gudbi doonaa calankii in laba qaybood laga dhigo oo qaybtan cad la daayo qaybtan buluuga ana la cuno oo laga dhigo qaybta Somaliland dhulbaantana lagu qanciyo in ay qayb ka yihiin maamulka Somaliland sida dowlad deegaanka Soomaaliya kale in laga dhigo federaalka hoostaga maamul dhisan laakiinse federaalka hoostaga waa arin siyaasadeed ee soo socda waa arin siyaasadeed ee soo socda haddaba ninka la yiraahdo Maxamed Kaahin jab xooggan ayaa ku dhacay Maxamed Kaahin waxa uu la kulmay guddigii sodonka ahaa ee ay ka talinta dhulalka SSC isagoo waliba dul dhigay lacago aad u fara badan balan qaadiye sameeyay guddigaas oo ka koobnaa Fiqishini iyo dhulbaahante balse hal nin oo $1 ka qaata ma jiro nin walba waxa uu yiri guddiga kamid ahaa maanta waxaan u taaganahay midnimada xoreynta jiritaanka aayaha gobolada SSC ama daraawiisheed waxaanu soo celin doonaa quwadii iyo awoodii ay daraawiishi wadanka Soomaaliya ku xareysay Muuse Biixiyo wuxuu watana waxa naga dhaxeeya qori caaradii ninkiina Kaahinaha telefoon buu la orday Muuse Biixi buu wacay hello Muuse Muuse dhulka dhulbaahanta iskaga samir hadii kale waa xabad iyo qori caaradii hubkan iyo ciyaalkan meesha dib uga qaad hadii kale waa la qaniimeysan doonaa jabkaas ninkii la yiraahdo Maxamed Kaahinna ku dhacay runtii waxaan idin soo gudbin doonaa waxa weeye warbixinooyin xiiso leh oo xasaasi ah isla markaana xaqiiqda ku fadhiya qofkii igu dhici lahaa iyo qofkii igu jeclaan lahaaba war waxaan idin leeyahay insha Allah biidmillahi alkariim go'aamada ka soo baxay simada dhulbaahante iyana waan idin la wadaagi doonaa goordhow hadduu Allah awood la idmo oo video ku xiga ayaan ka dhigi doonaa insha Allah guul iyo gobonimo halkan waxaan ka wada salaamayaa dhammaan intii daraawiisheed ee dhalinyarada ahayd ee u istaagtay halganka iyo mideynta haday af ahaan lahayd haday adin ahaan lahayd dhammaan guuleysta ayaan idin leeyahay ilmaadeerayaal guushana waa dhankayaga insha Allah guul Khaatumo SNM قبلكيدي بعدمي قد كي إلكينا كوسي سعطا إن شاء الله بإذن الله الكريم قول شنو ما أنت صولا يا تبي قول إيه قبل نمو